runtii aniga shaqada aan hay waa shaqo oo voluntary ah humanitarian ah waxay dhaanta lama arka adha committee oo baarlamaanka uu magacaabayay oo ah in guddi loo xil saaro muhiimo gaar ah haddii uu hadda gudoomiyaha baarlamaanka dhihi lahaa guddi abaarahan baarlamaanka qabtay waxay dhaanta aniga inay jirto ma aaminsani waxaa muhiima in shaqada la qabtaa muhiima oo dadkaan dhibaataysan xildhibaanna muhiimadiisa dhan waa dadka inuu u shaqeeyo wax kalama ahaba ama legislation ugu shaqeeyo inuu sharci dejiyo ama uu dowladda muraaqabeeyo ama xukuumadda uu dabagalo ama dadka inuu u qidmeeyo annaga waxaa jira adduunka xildhibaanada waxay ku shaqeeyaan wax la yidhahda constituency fund ay leeyihiin oo dowladda waxaa siisaa fan ay deegaanada laga soo doorto wax uga qabtaan marka dadka Soomaaliyeed hadda u shaqeynayna xilka aan hayno iyo xildhibaanki iyo waxaas oo dhan muhiimad ma hatta hadduu keenayo inaan ka tagno dadka ugu shaqeyna hatta anaga wax weyn nooguma fadhiyo runtii dooda sharci ee dadka qaarkii ay wadaan ay leeyihiin dastuurku wuxuu leeyahay qofku xil aan wasiir ahayn ma qaban karo hadduu xildhibaan yahay dadka aragtidaas qaba maxaad oran lahayd xilaan qabtaan ba jirinba aniga waxaan ku shaqeey xil waxaan u aqaanaa qofka markii la caawiyo hay'ad u shaqo tagay inuu jiro taliyana mas'uuliyad oo hadda waxa la magacaabay xildhibaan tusaale ahaan hay'ad u shaqo tagay subaxii oo xilkeeda la wareegay aniyaan xilka la wareegaya waa hay'adda u shaqo tagay waate intee ka diiwaan gashan tahay yaa shaqaale ka ama jirto shaqada waa shaqo volunteer oo loogu talagalay xildhibaanka dadkiisa community work dadka inuu u shaqeeyo shaqadii loogu talagalay waa shaqadan ahay haddii xataa u baahatana waa ku celinay xildhibaanimada ugu tagay si shaqadana u filiyana diyaarana u ahay wax dhibaato weyn kama jiraan wax mushaaraad ku qaadanaysa ma jirto ma adiga ka timid mise madaxweynaha ku gartay ma madaxweynaha ay gartay dabcan anigana markaan wada hadalnay oo koodii hore madaxweynaha maadaama mudnaantiisa koowaad ay ahayd dad badan oo qaabilayeen ay kala hadleen xajmiga abaarta oo leeyahay loona baahan yahay qof miisaan leh oo codkan qaadi kara iyo madaxweynaha runtii asaga iyo hawshan Cabdiraxmaan oo ila qabo saasaana keentay aniga aan la qabto waana ku mahadsan yahay inuu igu ixtiraamay inaan ahay qof u qalma inaan bulshada Soomaali u matalo dad baa yiraahday madaxweynuhu markuu yiri bas yar ayuu wataa tareen baan wataa marka waxaan rabaa dadka oo dhan inay siyaasadda ka qayb galaan marka waxa leeyahay Cabdiraxmaan si aanu mucaarad iyo dagaal badan u bilaabin madaxweynaha laga soo agdhaweeyo dadka doodaas qaba maxaad oran lahayd ma shaqadan waa shaqo oo waxa waaye voluntary shaqo siyaasadeed oo xil ah oo madaxweynaha ama power sharing ama awood qaybsi ama siyaasad ah tantaas ma aha tan waa tu bini'aadanimo waa tu xaaladda aniga asagana saasaan isku la fahansanahay markuu magacaabayna uu sheegay inay shaqo mutadawacnimo tahay